بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو وعنو ونكسن الداوديال ميلوبو جوكتين يسول بدنو داوانيسان كسو دوادا شيكوين حريرة يقصوين تاريخ الدبا وعن قدهانتو دونينو إنان هلكان إذن كلو ذاك نسي جوكتا واد كغبوغتان شيكوين كحرير كإن لله كواس أو رجبادان كقبو إنay suweyn idin soo jiitaan aadna si adag kaga heshaan. sheekadeenna maanta waxaa jiray wiil Soomaaliya oo markii ugu horeysay ee diyaaradda ka degayay magaalada Minneapolis isagoo oo wata jeebkiisana ay ku jirto oo kaliya lacag gaaraysay $300. haddaba xaalku sidoo uu noqday ayaan sheekadan inkaga dhacaya. ma uusan aqoon magaalada, ma uusan aqoon shaqo fiican. ingiriiskana waxa uu ahaa qof aan si wanaagsan u garanayn, laakiin waxa uu watay hal wax oo ay lacagtu aysan iibin karin. haddaba sheekadeenna ayaan gudagalaynaaye fadlan inagu soo biir subscribe leeg iyo share si daawade adigoo aada u mahadsan. sheekadeenna maanta waxay ku saabsan tahay wiilkii Soomaaliga ahaa ee Minnesota tegay isagoo oo wata lacag gaaraysa $300 10 sano kadib. maxaa dhacay halkan uga bogo. maalintii ugu horeysay ee uu Mareykanka yimid, qofkii oo ku tiirsanaa ayaa teleefankiisa damiyay. meel dambe ma jirin. maalintii saddexaadna wuu seexday meel uusan weligiis filayn inuu seexdo, laakiin waxa uu markaa ogeyn ayaa ahaa in go'aanku uu qaatay haweenkaas oo 10 sano kadib uu ka dhigi doono nin ay dad badani yaqaanaan. laakiin sidee ayuu u gaaray hadafkiisa? maxaa dhacay hameenkii uu qustay? qofkee ayuu la kulmay? maxay ahayd sirta uu hooyadii ka qariyay? iyo ugu dambeyntii markii uu taajiray maxay ahayd sababta uu mar qura ugu laabtay isla goobtii uu seexday? aan sheekadan bilowno. waxaan filayaa inaad fahamteen mawaadiicda ku gadaaman safarka wiilka tegay Minnesota isagoo haysta dhaqaale aada u yar. magaciisu waxa uu ahaa Ayaanle waxa uu ka dhashay qoys dayara oo ku noolaa Soomaaliya. aabihii waxa uu geeriyooday isaga oo yar. hooyadii waxay ahayd haweeney kaligeed caruurteeda korsata. Ayaanle wuxuu ahaa curadka qoyska. markii uu yaraa, hooyadiis waxay oran jirtay markasta, wiilkaygiiyow, haddii aad fursad hesho wax baro, haddina way tagtaa, laakiin aqoonta iyo akhlaaqdu way kula joogtaa. Ayaanle wuxuu isku dayayay waxbarasho, laakiin xaaladda qoyska way adkayd. mararka qaar wuxuu iskuulka tagi jiray isaga oo aan quraac helin. mararka qaarna buugga uu leeyahay oo uu doonayo inuu casharka ka barto ayuu wey jiray markii lagu yiraahdo soo qaad. haddana waxa uu ahaa wiil aad u dhaga fudud oo aan quusan, iskuna dayaya inuu gaaro ujeedadiisa. maalin ayuu helay fursadda uu dibadda uu ugu safro, ugana tegayo gudaha dalka Soomaaliya. qoyskiisii oo dhan waxay u arkeen inay tahay bilow cusub. hooyadii waxay iibisay dhowr waxyaabood oo ay haysatay sida ay wiilkeeda ay ugu caawiso safarka. maalintii uu baxay, hooyadii waxay tiri, Ayaanle, markaad Ameerika tagto ha ilaabin qofka aad tahay. wuxuu yidhi, hooyo, haddii aan lacag helo, marka ugu horeysa adiga ayaan wax kuu qabanayaa. hooyadii ayaa dhoolla caddaysay, laakiin
indhaheeda ilmo ayaa ka socotay